Hoggaanka ciidanka nabadgelyada wadooyinka ayaa waxa ay sheegeen shilalka ugu badan ee ka dhaca magaalada in ay ku lug leeyihiin mootooyinka bajaajka oo dhalinyaro shaqo abuur loogu sameeyay. Wariyahayaga Maxamed Abuukar Macda ayaa warbixinta warkaasi inoo diyaariyay. wadooyinka magaalada Muqdisho waxaad ku arkaysaa tirada xad dhaafka ah ee mootooyinka saddex lugooleyda ah oo ay dadweynaha sidaadka u isticmaalaan kuwaas oo ay wadayaal ka yihiin dhalinyaro shaqo abuur looga dhigay. in ka badan 5,000 oo mooto bajaaj ayaa u diiwaan gashnaa General Cali Xirsi Barre taliyaha ciidanka nabadgelyada wadooyinka hal sano ka hor intii aan xilka laga qaadin, laakiin hadda oo dib loogu magacaabay xilkaasi waxa uu rumaysan yahay in tirada ay intaasi ka sii badan tahay. xilliga aniga aan joogay 5,000 ay mareys, laakiin maanta aniga ma cadeyn karo hal sano iyo 2 bilood ayaan ka sii maqanahay shaqadan. sidaas ayaan hadda tirada saxda ah oo bajaajka magaalada jira aan u hayn. tirada kugu dambeysay waa 5,000 ay waatan ma qabil ayaa marka shaqada ka maqnay bil hal sano iyo 2 bilood ayaan ka maqnaa. balinta wadayaasha ka ah mooto bajaajka badankooda ma lahan xirfad darawalnimo, taasna waxay sababtay in shilalka ugu badan ee ka dhaca wadooyinka caasimadda ay ku lug leeyihiin mooto bajaajka. sababta jirta waxay tahay dadkii oo dhan markino halyoomka yareeyay nima wadida yaqaan inima wadida yaqaan labadaba waa wada wada magaalada Muqdisho waa magaalo weyn dadkeedana ku fara badan yahay nin hadda loo soo dhiibo hadda si la gal arkay nin hadda loo soo dhiibo ilaahay markino wixii iska wata arkay bila leeslaan nin leesiki wato markino shaqadina haddana aanan heli karin oo arkay runta diyan kaaga waram aniga hadda midaan aan wado midaan leeyahay maahan qofku kaliya wada lacag $8 laga qaadaa maalintii bardey. والله darawalnimada horena waxa uu baxsanaayo hadda bajaaj ugu ma horeyn gaadiid badan hadda waa xoogaa wax soo kacay istaas waa soo qabtay baawur caadi ah wadi jirta baawur caadi waa soo laakiin mooto waa ka duwan tahay sama mooto waa ka duwan tahay laakiin mooto waxaan wada jiraa wal Facebook Facebook tan waa isku mid mootooyinka Facebookda waa taqaan si fiican u taqaan wanaynay iyo mooto tan waxba isma dhaamaan sababtoo ah Facebookdu inta mar shay qaadatay si qaabkay u qaadatay tanna wadada sharci ayaa loo maraa qaab loo maro shuruuc ee leedahay taas laftigeeda waxba kama taqaanin Soomaa. wallahi dabcan hadii aan kaaga sheekay taasna waxa waaye sababtoo ah adduunyadu waa indheer garad Soomaalidu ee dadku bilaadin wuxuu kaliya indheer garad nin wax bartay waxaan ku jirnaa qolooyinka indheer garadka ah oo hadee ilaahay kuma darnaaday wacyiga iyo waayaha jirana baray. dadweynaha isticmaala mootooyinkaasi waxay qabaan walwal xilli walba oo ay raacayaan mooto bajaajka. horta marka ugu horeyso waa dadka nidaamku ma socdaan oo dawladdiina wax loo baahnaa inay nidaamiso oo imtixaanaadka qaado si ay u wadaan ayagana khayr mas'uulnimo badan ku arkaa waxaan inay bir tahay oo mas'uul ay yihiin oo dadka saaran inay mas'uul ka yihiin maba oga. marka waxa arkaysaa ayagoo isku xiraayo meel ay mari kareen inay isku dayaan inay maraan haddana jidadkii wadankii oo iska jajaban ayaa waxa arkaysaa in si khayr caadi ah inay u wadaan marka dhibaatooyin badan accident badan oo ka dhacayna waan arkay marka waa kaasa. marka adigu shakhsiyan marka raacdo maxaa dareertaa cabsi ma dareertaa? cabsi aad iyo aad u weyn waan dareemaa waxaan sidaa goormay kula gadoomi doontaa goormay shil gali doontaa hadda la hadashidna waxay ku arkaan ma aragtay adigiiba ma aragtay inaa ma aragtay nin duqo ma aragtay nolosha jecleena tahay ya. taliyaha ciidanka nabadgelyada wadooyinka General Cali Xirsi Barre ayaan weydiiyay sida ay u hubiyaan xirfadaha wadayaasha mootooyinka iyo mas'uuliyadoodaba ka hor inta aysan siinin waraaqaha sharciga ee darawalnimo. waa sharci degsan oo 1962 la dejiyay. ninkan waa inuu 6 laxaad caafimaad qaba, maskaxiyana caafimaad qaba, indhihiisina fiyoyin, gacnihiisina fiyoyin, lugihiisina fiyoyin, maskaxiyana caafimaad qaba. markaas waxa ku xigay inuu tababar soo maray ninkaas oo tababar qaatay oo gaadiidkan si loo wada bartay. waa tahay tababarka idinka soo ma hubisaan mise idinkaasiyo waxaa jira dugsi ka furan wasaaradda gaadiidka hoostaga oo u furan in laga qaato leysimo oo imtixaan lagu qaado oo shahaadada lagu bixiyo wadida gaadiidka iyo mootooyinka. qoladaas ayaa u soo ogolaata leysigan ayaa u ogolaada annaga gacan siin un baan u nahay
hadhow qofku markuu inta shil galo dhibaato timaadana waxaan xaq ugu leenahay inaan laysankiisa iyo buuggiisa ogaano. hadda sidaan ka warqabno shirarka dhaca magaalada muqdisho wadooyinkeeda waxaa ugu badan bajaajka ama iyaga shilka ha galaan ama ha lagu galo maxay tahay sababta muddadin haddeer waxbaa isku noqday xataa xadka lagu soconayo waddada tabeelaha baabuurka 30 bajaajka 20 ninkan wuxuu raadinayaa caasiga ayay bedeleen nimankan asoo dheereeyo ku dhaafaya qafka gacantu taagay barta hore ka istaaga inuu qafkaas qaado raba waxa imaan kara iyo dhibaatada uu ku dhex jiraba muusan dareemin waaka marka idinka ma diiwaan gelisay keeba badan baabuurta kala BL-ka ama caadiga ah iyo ku bajaaj xilliga aniga aan shaqeynay bajaajka ayaa badnaa shilalka inkastoo ay jiraan dhibaatooyin badan oo ay sababeen kororka iyo xirfadleyda mooto bajaajka iyo darawaladooda ayaan haddana dhanka kale waxaana dafiri karin sida ay u dabooleen baahida gaadiida ay qabeen dadweynaha gaar ahaan ardayda iyo shaqaalaha maalin walba ku kalaha shaqooyinkooda iyo goobaha waxbarashada kuwaasoo sidoo kalena ay ka rawaxiyaan waxaana sidoo kale ay dadweynuhu ku qabaan mooto bajaajka isticmaalkeeda qiimo jaban oo ay ku kireystaan.